إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم. تاريخ الصحابة يقول سيرة علي بن أبي طالب ننبا هل من مبارز وحل معركة مسلمين حقا أي جوغان قالوا حقا أي جوغان ayuu yidhi ninkii ugu itaal weynaa gaalada ayaa soo dhaco yidhi hal min mubaarizin ayaa macrakada igu soo dhacaya. cali baa u dhacay radiyallaahu canhu. cali ibnu abi taalib ninkii intuu qabtay buu legday, markuu seeftay qaatuu yidhi geli markuu isidhina cali ibnu abi taalib oo ninka kor fadhiyey buu qandhuuf wejiga lagaga tufay. markaasuu cali qandhuufaa lagu tufay, wejigaa lagaga tufay. gaalkiina dhulkuu jiifaa, calina seeftii buu haystaa, qandhuuf baa lagu tufay cali oo sarreeya. uu ka kacay cali. saxaabadii waxay ku yidhaahdeen yaa caliy maxaad uga kacday baa lagu yidhi, gaalnimana ninkani diinna waad ula dagaalamaysay, adigana qandhuufu kugu tufee. waar marka hore ilaahay dartii baan u dagaalamayey, hadda cadhaa ay soo gashay buu yidhi, naftayda darteed inaan u dilan ka baqay buu yidhi. lillaahiyad waxaan qaban ilaahay dartii baan u qaban, ciddaan jeclaan ilaahay dartii baan u jeclaan, ciddaan nici ilaahay dartii baan u nici, waxaan bixin ilaahay dartii baan u bixin, waxa khayran sheegi ilaahay dartii baan u sheegi, khayrkaan dhegaysan ilaahay dartii baan u dhegaysan. waa inaad noqotaa qof diiniya oo diintu ay xakamaynayso, si su'aasha qabrigu kugu dhib yaraatoo tidhaahdo aniga diintaydu waa islaam. sidii labadii nin ee xadiiska nebigu noogu sheegay fi sunan, nin baa nin dhul ka iibiyey. dhulkii markuu gatay waa dhulbeereed buu ahaa, uu falay markaa khasna dahaba markaa uga soo baxday, jarra min addahab uu qaatay. uu la ordo ninkii lahaaba uu keenuu ka yidhi war dhulkaad iga iibisay dahabka inta leeg baa ka soo baxee, malaha waad ilowsaneeda iga qaada buu ka yidhi. markaasuu yidhi may anu kuma ogayn, adaa ilaahay kaa siiyey, adaa iskale iska qaada buu ka yidhi. war waxaan adigaa le iga qaado. innaga zamankeenna waa maxay? war waxaan anigaa le isii weeyaan, teen waxaan ku dagaalamayna. dhulkan anigaa leh, gurigan anigaa lahaa, meheraddan anigaa lahaa, waxaan anigaa lahaa baa isku haysannaa. iyaku waxay taagnaayeen dadku markay hagaageen, war waxaan adigaa le iga hoo iyo kaa qaadan maayo. may ma dhici karto. may adaa iska leh, adaa ilaahay ku siiye iska qaado. may dhulkan adaa iga iibiyey, malaha waad halmaamsantahe, adigaa iskale iga qaado, waxaan meliya anigu yahay, lacagta intan leegna anigu kuma siine. may labadii nin intay isqabsadeen bay maxkamadda tegeen. maxay isku haystaan? kan wuxuu leeyahay xoolaha nin kalaa leh ha iga qaato, kanna wuxuu leeyahay war meliye isagaa ilaahay siiye ha iska qaato. qaadigii markaa qaadi fiican buu ahaa. qudaadda zamankan laga yaaba inay odhan lahaayeen xoolaha dawladda ale iska keena. ilaa qaar baa iska fiican way jiraane, laakiin kuwadda waxaa iska jira dawladda u shaqeeya moogta, xoolaha dawladda iskale iska keena, halka ka baxay ninkuna muu odhan. wuxuu yidhi adu maxaad leedahay ubad wiil, adiguna gabadh, labadaa isku guuriya, labadaana xoolaha siiya buu yidhi. islaaxu waa cajiib. halkaa hadday islaaxdo waa cajiib, halkaa hadday xumaato laakiin dhegayso qisad kale. 3 nin baa nebi ciise raacday calayhi salaam. siday ula socdeen ayay yimaadeen meel bannaanka uu dahab ku yaallo, dhaymanku. markaasuu nebi ciise ku yidhi waxaan waa dhayman, waa dahab, waa jawharad. markaasay yidhahdeen noo qaad. markaasuu yidhi nebi ilaahay soo diray iyo adduunya meel ma wada marta buu ka yidhi. markaasay dee annakaa qaadanayna, dee haddaad qaadataan i raaci maysaan waad iga hadheen ogaada buu yidhi. diin iyo adduunya isma raacda buu ka yidhi. waa nebi zaahid u ahaa nebi ciise calayhi salaam. 3 nin way ka hadheen baa layidhi nebigii, ayaan darrada eeg. markaasay dahabkii qaateen, way la socdeen, way la lugeeyeen. magaaladii markay u dhowaadeen bay yidhaahdeen haddaan maalin galno waa la naga dhici, habeen han ku beegno, laakiin waa gaajoonaynaa. way tashadeen, waxay yidhahdeen laba dahabkaas sii ilaaliso, midna magaalada intuu tego cuntahay noo soo qaado, yuuna cidna inoo sheegin. waa hagaag. kolkuu ka dhaqaaqay labadii dahabka ku hadhay, ilaa shayddaankiiba dhiigga bini'aadanka dhex socdee, ayaa wuxuu yidhi mid walba midka kaluu ku yidhi dahabkan labadeennu buu nugu fiican yahee, ninkaa markuu yimaado
aniguna waan la hadlay waan jeedin adiguna midida halkaa ka geli maydkiisana bahasha ha ku ridno ha ku aasno dahabkana labadeenu ha kala qaadanno marxaba kiina uu sii socdaa shaydaanka isagana dhiiggiisii ku dhex jiro wuxuu ku yidhi dahabkan adigoo muu kugu fiican yahee cuntada intaada soo cun ayakana u soo sumee markay dhintaana dahabka iska qaado maxaa ka dhacay kudha tahay meeshaas uu yimiday cuntadiibuu u dhigay isagii bay khaarijiyeen cuntadii bay cuneen iyagiina way iskhaarijiyeen nebiyullaahi ciise calayhi salaam ayaa soo maray dahabku halkii yaalla iyo saddexdoodii oo mayda markaasuu xawaariyiintii ku yidhi adduunyadii ubadkaygu sida isku galeen eega buu ka yidhi